sidii caadiga ahayd shirkii golaha wasiirada maanta ay isugu yimaadeen golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa looga hadlay arrimo aad iyo aad runtii muhiim u ah waxaa lagu kala qaatay warbixino wasaarado badan ay horkeeneen golaha oo ay kaga waramayaan shaqooyinka ay hayaan sidoo kalena waxaa la horkeenay heshiisyo iyo isfahamiyo dowladaha Soomaaliya iyo dowladaha aynu saaxiibka nahay dhexmaray oo qaarkood lagu ansixiyay sida isafgarad wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya iyo wasaaradda shaqada iyo adeega bulshada Turkiga oo kale dhexmartay ayaa lagu ansixiyay sidoo kalena waxaa runtii warbixinahaas iyo go'aamadaas kamid ahaa golaha wasiiradu maanta si fiican uga hadleen ama aad muhiim u ahaa laba qodob oo guulo iyo culeysba isugu jira guulaha waxaa runtii golaha wasiirada halkan warbixin ku siiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyayaasha ku mashquulsan amniga iyo dagaalada lagaga horjeedo argagixisada al-shabaab iyo daacish iyo argagixisada ayaa golaha wasiirada report laga siiyay ciidamada Soomaaliya golaha wasiiradu waxay ammaaneen guulaha ay ciidamada Soomaaliyeed ka gaarayaan la dagaalanka argagixisada runtii dagaalka furinta iyo ka kale ee lagaga sifaynayo meelaha ay ku dhuumalaysanayaan magaalooyinka dhexdooda ayaa labadaba report fiican laga siiyay golaha wasiirada golaha wasiiradu waxay ammaan iyo bogaadin u jeedinayaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee kala duwan dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo guulaha ay ka gaareen waxaanu si gaar ah u amaanaynaa ciidamadii ku jabiyay argagixisada awdheegle shalay subaxii oo runtii jab aan la malayn karayn ugu geystay argagixisadii soo weerartay saldhiggii ay hore uga qabsadeen argagixisadu halkaas waxay ku yimaadeen miisaan weyn oo ay u barteen inay meelaha ka horeeyay markay ficilkaas oo kale sameeyaan in ay qabsadaan saldhigga dhowr meelood oo ka horeysay dhibaatana geystaan laakiin ciidamada Soomaaliyeed geesiyaasha ah waxay ku guuleysteen shalay in ay argagixisada jabiyaan oo ay u suura geli weyso hamigii ay meesha ku soo aadeen oo ay kala kulmaan jab iyo naasabeel aanay dib dambe uga soo kabanaynin ay kala kulmaan marka golaha wasiiradu wuxuu ammaanay ciidamada halyeeyada ee Soomaaliya iyo taliyayaashooda guushaas iyo jabkaas u geystay argagixisada guushaasna soo hooyay ayaa ciidamadu aad iyo aad u ammaaneen sidoo kale golaha wasiiradu waxay maanta halkan kaga hadleen resolution golaha ammaanka horyaal oo la yiraahdo 1267 oo runtii inkasta oo dawladda Soomaaliyeed dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay dagaal kula jiraan argagixisada ay ka go'an tahay dawladda Soomaaliya in qaab kasta oo suuragal loola dagaalamo argagixisada looga joojiyo dhaqaalaha iyo wax kasta u sahlaya inay ficiladooda argagixisada cid wax ku yeeleeyaan dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed wax ku yeeleeyaan wadamada dariska iyo adduunka wax ku yeeleeyaan iyadoo dawladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay haddana resolutionska la xiriira dhaqaalaha ayaa dawladda Soomaaliyeed waxay golaha wasiiradu ka doodeen dhibaatada uu u geysan karo resolutionkaasi nolosha dadka caadiga ah ee Soomaaliyeed marka waxaa golaha wasiirada laga qabtay guddi talooyinka keena qaabka ugu wanaagsan argagixisada loola dagaalami karo khasaaraha noloshooda taabanaya gargaarkooda taabanaya bini'aadanimada taabanayana looga taxadari lahaa inaanay shacabka Soomaaliyeed ee muddada badan dhibaataysan aanay dhibaatadu ku sii badanin ayaa isagana looga hadlay runtii waxaan yidhi golaha wasiirada waxaa looga hadlay wax badan oo guulo iyo culaysyo ah waxaad moodaa shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda hogaankooda dad badan oo kamid ah inaanay ku baraarugsanayn caqabadaha dawladda dhexe ee Soomaaliya la kulmayso
dowladda dhexe ee Soomaaliya ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ku mashquulsan inay dadka Soomaaliyeed dhibaatada ka saarto culaysyada caalamiga ah ee haysta oo halkii laga caawin lahaa culaysyada caalamiga madaxda Soomaaliyeed ee heerarka kala duwan qof kasta oo mas'uul Soomaali qof kasta oo waxgarad ah oo Soomaali halkuu ka caawin lahaa dad badan oo kamidii ay si ay u jabto dowladda Soomaaliyeed ku badinayaan culayska iyo dhibaatooyinka ay gudaha ka sameynayaan si dowladdu u awoodi weydo inay dadaalada iyo xaqiijinta dowladnimada dowladda Soomaaliyeed oo micno leh halkay ku mashquulsanaan lahayd in dad kale caqabado gudaha ah u sameynaayo taasoo aan u saamaxayn dowladda challengeska ama caqabadaha iyo culeysyada dadka Soomaaliya inay halka ay joogto ka kacdo aan jeclayn ay ku sameynayaan markaas waxaan ugu baaqaynaa runtii anoo ku hadlaya afka golaha wasiirada waxaan ugu baaqaynaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed u sheegaynaa in markii uu soo baxay iftiin ah in Soomaaliya ay ka baxayso dhibaatooyinkii ay 30 sano ku dhawaad ku jirtay in la arkay Soomaaliya inay ka baxayso noloshii sariirta ay saarnayd ee lagu qadaraas qaadanayay markii la arkay inay imaanayso dowlad Soomaaliyeed oo doonaysa inay danaha dadkeeda difaacato xuduudaheeda difaacato khayraadkeeda difaacato codkeeda difaacato sharafkeeda difaacato in cadow badan uu isu soo urursaday Soomaaliya taasoo u baahan in siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo shacabka Soomaaliyeed lahaadaan aragti midaysan oo ay ku garab istaagaan dowladda Soomaaliyeed in ay dadkaas dowladahaas iyo shakhsiyaadkaas doonaya Soomaaliya inay khaanadii ay ku jirtay ee liidatay weligeed ku jirto in la iska kaashado oo shacabka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed ay garab istaagaan dowladda la kala sooco waxyaalaha yaryar ee Soomaalidu isku haysato iyo interestiga guud iyo difaaca danaha qaranka Soomaaliya inay jirto inay dal ahaato inay sharaf lahaato inay dowladaha dhigeeda la sinaato masiirka ah inaan lagu gudbin dana yaryar oo hoose wax qabiil uu dabada ka riixayo wax dan shakhsi ay ka riixayso danta weyn ee Soomaali oo dhan loo difaacayo aan dowladda lagaga mashquulin waxaan naf lahayn waxaanu abiil garaynaynaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo abiil garaynaynaa wax galka ah ee dalkan dan kale oo abiil garaynaynaa bulshada rayidka ah ee aqoonta leh waxgaradka Soomaaliyeed in dowladnimada Soomaaliya inay kacdo cadow badan leedahay dowladana ay haystaan caqabado waaweyn oo gudaha aanay iyo kuwa dibadda ah oo u baahan lagaga bixi karo oo kaliya midnimo Soomaaliyeed wadajir Soomaaliyeed tala Soomaaliyeed oo tudniin Soomaaliyeed marka waxaanu leenahay dowladuna way la xiriiri doontaa wacyigelintaas way gaarsiin doontaa waxgaradka Soomaaliyeed noocu doonaba ha noqde waxaanuna doonaynaa in dalkeenu dowladdu inay ku mashquulsan tahay in meesha aan joogno ka kacno inaan la mid noqono dowladaha kale adduunka ka jira ee awood u leh inay dalkooda iyo dadkooda mas'uuliyadiisa qaataan oo aan loo maamulin in ay xuduudahooda iyo khayraadkooda difaacdaan oo aan loo maamulin laakiin aan dad badan aan inoo ogolay waxaynu kaga gudbi karnaa midnimo waxaynu kaga gudbi karnaa wacyigelin iyo baraarugsanaan aynu ku wajahayno national interestiga ama danaha guud ee qaranka Soomaaliyeed aan lagu gudbayn waxyaalaha yaryar ee aynu isku haysano aad u mahadsan